Xaaladda Bariga Dhexe, Israa'iil Seeriga digniinta ayaa isqabsaday ka gees ka gees. Duqeymuhu waa ay ku soconayaan ha noqoto gantaal ama diyaaradaha droniska ee hal mar isqarxiya. Imaaraadka Carabta dabaqyadii waa ay dudumayaan, isagana si la mid ah ayaa loo weerarayaa. Baxrayn ayaa iyadana caawa weerarka ku socda, 3 jiha weerar ah ayayna Iiraan caawa qaaday, taas oo ay uga aargoosanayso sida ay sheegeen duqeymaha lagu hayo dalkeeda oo meelo muhiim ah oo xitaa goobihii biyaha dadka shacabka ka qaadan jireen la duqeeyey. Halkan ayaan kugu falanqeyn doonaa iyo sidoo kale khasaaraha Mareykanka ku gaaray dagaalka dhaqaale ahaan iyo qalabyada celiya madaafiicda oo burburay ayaan halkan kugu falanqeyn doonaa. Muuqaalkan shargare saaxiibadana u gudba aynu ku bilaabana. Waddanka Israa'iil dhammaan dadku waxa ay ku jiraan dhulka hoostiisa goobaha gabaadka ah, xitaa halkaasi ayaa joodariyaasha la geystay oo la seexanayaa sababtoo ah ma noqonayso digniintu mid kala go'aysa oo waxa ay noqonaysaa mid isdaba jooga. Sidaas daraaddeed dadka shacabka ah jaanis uma helayaan inay guryahooda dib ugu laabtaan. Caawa ayaa ugu daran oo waddanka gees ka gees waxaa la sheegayaa in digniintu is haysato oo meel kasta la duqeynayo. Duqeymaha tooska ah ee gantaalada balastiga iyo noocyada kala duwan ayaa ku soconaya. Sidoo kale waxaa jira diyaaradaha halka mar soo gala hawada ee isqarxinaya, kuwaasi oo ku soconaya hawada dhulka Israa'iil. Dadka shacabkana waxaa laga dalbaday in ay galaan goobo gabaad ah oo aysan kasoo bixi karin. Arrinta kale aan fariirka ku keentay ayaa waxa ay tahay oo xitaa qalabyadii ugu casrisanaa dunida ay qaban waayeen in gantaalada ay soo ridayaan Israa'iil waa Iiraan ay soo ridayso Israa'iilna kusoo dhacaya, in haatan ay la soo baxeen noocyo cusub oo madaxyo kala duwan leh, kuwaasi oo la sheegay marka ay soo hoobanayaan isla markaana la rido kuwa kale gantaalada ah ee kahortaga ah ee difaaca ah ee ay ridayaan Israa'iil iyo sidoo kale Carabtu ay haystaan. In hal xabo marka la rido gantaalka marka uu kusoo dhow yahay 10 nooc u kala dhaqaaqayo, 10kaasi noocna hal mid oo ka mid ah gantaalkii difaaca uu ku dhacayo, 9ka kalena ay u gudbayaan dhulkii oo ay dadkii iyo goobihii ay u socdeen iyo sidoo kale meelihii mas-uuliyiinta reer galbeedka Israa'iil iyo Carabtu ay joogeen ay si toos ugu dhacayaan. Taasi oo noqotay mid la yaab leh iyo hawl aan wax laga qaban karinin. Waxa ayna noqonaysaa noocyada gantaalada cusub ee hadda Iiraan la soo baxayso oo ay ku dagaalamayaan, taas oo dagaalka ka dhigaysa mid aad u sii qaraaraada iyo in Israa'iil, Mareykanka iyo Carabta qaarkood oo wada socda ah ay ku guuldareysanayaan dagaalka iyo inay Iiraan ka guuleystaan. Dhanka kale, Imaaraadka Carabta garoonkii ugu weynaa ayaa dhammaanba waxa uu joojiyey wada shaqeyntii iyo duulimaadyadii ka soconayay kadib markii qaar ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya Iiraan ay soo galeen garoonka kuna dhaceen. Sidaas daraaddeed waa la kansalay wax duulimaada halkaasi inuu ka socdo. Waxaa kaloo jira in isla caawa dabaqyada ugu dhaadheer Dubai ay ku dhaceen qaar ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Israa'iil laga soo gamay, taasi oo la arkaya dabaqyo aad u dhaadheer oo gubanaya isla markaana ay adag tahay in dabdamiska xitaa biyaha uu la gaaro. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Israa'iil waa madaxweynaha Dubai waa ninka Imaaraadka Carabta hogaamiya uu u hanjabay waddanka Iiraan isla markaana uu sheegay in tallaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan oo waxa ay ku sameynayaan Dubai ay tahay mid ka daran waxa ay ku sameynayaan Israa'iil. Waxaana xaqiiqo ah in dagaalada sida ay u bilowdeen in ka badan inta Israa'iil la duqeeyay ama diyaaradaha loo diray Israa'iil ee dagaalka in ka badan Dubai ayaa loo diray, taas oo keenaysa in madaxda Dubai ay aad u caroodaan Imaaraadka Carabta. Waxayna sheegeen in ay gacan bir ah isaga qaban doonaan Imaaraadka Carabta, ayna soo dhammaatay wada hadal iyo waanwaan iyada oo ay u muuqato in ay aad u careysan yihiin madaxda Imaaraadka Carabta. Laakiin hadalkooda saacado kadib ayaa si toos ah loo bartilmaameysaday dabaqyadii u dheeraa Dubai iyo sidoo kale garoonkii ugu weynaa Bariga Dhexe oo Dubai ku yaalay, taasi oo noqotay in aysan wax shaqaaba halkaasi ka dhicin. Dhanka kale, waddanka Baxrayn ayaa isagana waxaa ku soconaya duqeymo aad u fara badan oo caawana ka mid ah wadamada aadka loo duqeeyey, waana waddanka saddexaad ee Iiraan ay si aad u duqeysay tan iyo markii dagaalku uu bilowday. Waxaana la aaminsan yahay halkaasi in saldhigga ugu weyn ee Mareykanku uu leeyahay uu ku yaalo. Iiraan oo ka hadashay sababaha ay u duqeynayso Imaaraadka Carabta ayaa isla markiiba iska soo hormarisay raaligelin. Waxayna sheegeen in aysan Imaaraadka Carabta iyo dhammaan wadamada Carabta aysan u soconin, laakiin dhibka jira ay tahay
in cadowgooda soo weeraraya ay martigeliyeen, sidaas daraaddeed ay ku qasban yihiin inay ka jawaabaan xaaladaasi. Ka jawaabistuna ay noqotay in wadamadii carabta ay saameyn karto, iyaga oo ka dalbaday in ay cadowgooda iska saaraan, wax duqeymaana aysan soo gaari doonin. Dhanka kale, waxaa jira nidaamyadii carabtu ay ku bixinayeen lacagihii ugu farada badnaa ee billions dollar ka noqonayay ayaa waxay noqdeen howlgab kadib markii qaar ka mid ah madaafiicda iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay ku dhaceen. Nidaamyadan ayaa qaaligooda xitaa waxa ay ka badan yihiin ilaa iyo 10 bilyan oo dollar, waxaana in la sameeyo ay qaadatay ama hore lagu soo saaray ilaa iyo 10 sano wax ka badan. Haatan ayaa la sheegayaa in nidaamyadan in dib loo dayactiro ay qaadan karto 5 sano ilaa iyo 8 sano. Waa nidaamyada burburay, ilaa iyo waqtigaas ayay qaadan kartaa in dib loo dayactiro, taasi oo ah ama muuqanaysa in dharbaaxasho adag ay Israa'iil, Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada carabta oo wada socda ay Iran gaarsiisay. Dhanka kale, wadamada carabta ayaa Mareykanka waxa ay ka dalbanayaan in dagaalkani la joojiyo, qaarkood oo Sacuudiga u horeeyo, haddii kale ay tallaabo qaadi doonaan oo ay joojinayaan dhaqaalaha ay ku bixinayaan Mareykanka iyo inay maalgashadaan maadaama dhaqaalahooda hoos u dhacay. Shidaaladii lasoo saarayay dhammaantood hawada ayay ka baxeen, mana jirto wax shidaal oo lasoo saarayo, oo kuwii hore xitaa maraakiibtii qaada ayaa xiran oo gacanka hormus hortaagan oo meel ay ka baxaan la. Warshadihii shidaalka ay soo saareen kaydka hamiinkii ahaa waa ay buuxsameen. Haatan waxaa lagu dhawaaqay in la joojiyo dhammaan shidaalka la isticmaalayo ama lasoo saarayo, sababtoo ah meel la geeyey maba jirto. Taasina waxay ka dhigan tahay in dhaqaalaha wadamada carabta uu dhulka ku daadanayo. Dhanka kale, waxaa jira in Iran hadda ay ku dhawaaqday in Mareykanku uu duqeeyey meelo ka mid ah wadamada meelaha kaabayaasha Iran dadka shacabka ah ay adeegsadaan, oo ah goobaha dadka biyaha u sifeeya ee biyaha siiya. Arrintani ayay sheegeen in Mareykanku uu bilaabay, laakiin ay cawaaqib xumo aad u daran ay ka dhalan doonto. Hanjabaadna hadalkaasi ayaa u muuqdo, taasi oo ka dhigan waxaa la ogyahay in Israa'iil dhammaan dadka 90% ay ku nool yihiin biyaha la sifeeyey oo ay cabaan. Sidaas daraaddeed ayay ku sheegeen haddii ayaga dhibaatadaas loo geystay in ay tallaabo qaadi doonaan, waxayna u badan tahay in Israa'iil xitaa goobaha biyaha laga soo saaro ay duqeyn doonaan oo ay kala jari doonaan. Dhanka kale, Mareykanka ayaa wadamada Ruushka iyo Iran waxa uu eedeeyay Shiinaha inay Iran garab istaageen oo ay siiyeen xogo sir ah, taasi oo ah goobaha ay ku sugan yihiin Mareykanka, ciidamadiisa, saldhigyada, maraakiibta, meel kasta. Taasi oo la sheegayo in ay fududeysay in la duqeeyo oo si rasmi ah loo burburiyo meelo badan oo carabta ah oo saldhigyada ciidamada Mareykanka ahay, kuwaasi oo qaarkood askar badan oo Mareykan ay ku geeriyoodeen. Waxaa weeyaan Mareykanka ayaa arrintan wuxuu ku eedeynayaa Ruushka iyo sidoo kale Shiinaha inay ka shaqeeyaan oo xogtaasi sirta ah goobaha xasaasiga ah ee Mareykanka ay ku sugan yihiin ay u fududeeyeen inay siiyaan Iran, isla markaana ay u fududeeyeen xitaa inay beegsadaan, taasi oo suuro gelisay in jab weyn Mareykanka uu gaaro. Wuxuu wararay xaaladdan kasoo kordhay halkan ayaa ka heli doontaa muuqaalkan sheer garee saaxiibadana u gudbi.